على يري مركا ورحل واوينه والهدا aan wadadii saxda ah ku soo laabano nidaamkii axzaabta aan u gudubno waxaadna moodaa dadka in axzaab loogu sheekay Soomaali ama ay fahmaan tax long time waqti badan ay qaadanaysaa wax hada sahlan oo sida dadka ay aaminsan yihiin ma aha orientation badan u baahan tahay axzaabta mid sida hada loo fahansan yahay miya oo federalism oo ah nin walba waxa waa soorinteeda loo mas'uul awaakar ana meeshada madaxweynaha ka dastuurkeega haduusan waafaqsaneen kan federal kumagaar xataa shaqo kumada dastuurkeega waxa waa ii shaqeeyo aniga awood leh miya axzaabta wax laga fahansan mis axzaabtii cilmiga iyo aqoonta ku dhisneed oo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo garab dhalinyaro leh oo garab dumar leh miyay ku dhisan tahay iyo xarumo waaweyn leh mis axzaab waxa waa shantada iyo boorsooyinka isaga sita wayaan taalaftirkeedu waa muhiim laakiin haddana in fikirka ah inuu bilaado aan ka gudubno systemkan lagu soo dooranay 4.5 mar hore uu soo bilowday waxa laga soo bilaabay in oday wax uu soo xuli jiray odaygii waa laga soo gudbay waxa la yiri koob iyo konton ergo hadda waxa la leeyahay one man one vote waa steps wanaagsan oo wadada saxda ah sida beelaha u qaadan lahaayeen beel walba intay hadda haysato oo 61 sida loo haysto ayaa loo haysanayaa wax iska bedel ma laha laakiin caqabadaha waxa weeyaan iska taagan mar kastaba waa in dadkii waxa weeyaan ay wili haystaan ama ay wili ka tabanayaan dulmigi uu jiro lagana yaabo meelaha qaarkooda dadka majority-ga wax dooranaya inay iyagu yihiin qof aanay iyaga matalin oo muxuu ahaa mantiqadooda intiqaabiyada ama wax la yiraahdo constituency-goodii aanan ka iman inay waxa weeyaan u codayaan ay berito waxa weeyaan aysan wax ku lahayn oo goobo badan ayaa jiro meelo waxaa jiro xildhibaano ay hal xildhibaan uu matalo laga yaabo inay ka dhul waasaxsan yihiin xildhibaano 8 ah inay ka dhul balaaran yihiin marka meelahaas oo kale waxa weeyaan dulmi waa ka iman kara waxa kale oo ka iman kara hadhow nafcigii iyo faa'iidadii ka soo gali lahayd dawladda federaalka inaysan helin waayo markastaba waxa waaye voice-ka xildhibaanka ayaa wax weyn waxa weeyaan ka bedeli karo ay gaaro oo yaan wana la geeyay